السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أنت مالك استاذ جوكتان أقصد دباتين برنامجكي أما تحناها ها أتكرر برتين جنرال كان إنجنير محمد إبراهيم عمر. عن كسر شيء كني 10 كني نقول نبي what is a past continuous tense. عن كسر شيء كني عن كسر هذا الناي waan soo qeexnay wuxuu ka hadlo wuxuu ka sheekay dhan waan soo sheegnay waxaan dhahnay past continuous tense is used to express an action which was taking place at the same time in the past. Aan dhahnay sidoo kale waxaan ka soo hadalnay formulaha uu leeyahay ama uu ku shaqeeyo past continuous tense. Waxaan dhahnay subject plus was slash were plus verb plus ing plus object. Example ka soo hadalnay maanta waxaan rabnaa example-kii inaan sii wadno oo la xiriira, balse intaanan example-ka u gudagelin waxaan rabaa ama asxaabta rabaa inaan u sheego in channel-ku yahay channel cusub uuna doonayo in meel sare la gaarsiiyo, lana saaro subscribe, share, like intuba la saaro. Ilaa channel-ku wuxuu ku suurtageliyaa haddii la yahay arday in ardayda u suurtageliyaa inay ka faa'iideystaan maadadan English-ka, khaasatan grammar-ka iyo tenses-ka iyo ereyada iyo casharada iyo ada kuwa kale oo adiga quseeya maadada English-ka. Haddii aan leeyahay how to write English iyo how to read English. Marka haddii intaasi ni laga helo subscribe, like, share intuba ni laga helo, channel-ku markasta wuxuu ni suurtageliyaa inaad ka faa'iideysataan aadna ka barataan how to write iyo how to read. Haduu Ilaahay ka raali noqdo. Marka idinkaan laga rabaa idinkoon iga fadhiya channel-ka inaad kalkacisaan. Masha Allah, channel maanta wuxuu taagan yahay meesha ugu dhaxaad uu taagan yahay. Wuxuu rabaa wuxuu u sii socdo ma u sii wajahan yahay meeshii sare inuu sii gaaro. Marka waxaan rabnaa inaan channel kalkacisaan. Channel-ku wuxuu ni suurtageliyay maadada naga dhisi doono marka la share gareeyo. Okay, haddaan u soo noqono cashirka maanta waxaan qaadan doonaa example of past continuous tense aan dhameystiri doonaa. Waxaan example koowaad oo noo yaal wuxuu yahay they were staying at the home last night. They ayaga were staying waxay joogeen at the home guriga last night. Xalay waxay joogeen guriga joogeen. Wada maxay tahay waa affirmative and statement iska caadi ah. Maxaa la they ayaga were staying waxay joogeen at home guriga last night. Xalay waxay joogeen guriga. Ayaga waxay joogeen guriga ilaa ay xalay last night. xalay su'aalka maxaa la markuu were they staying at home last night. Miyay ayaga joogeen guriga xalay. Su'aalka diid ma ka dhig they were not staying at home last night. Ayaga ma joogin guriga xalay. Question is negative. Weren't they staying at home last night? So miyaysan ayaga joogin guriga xalay. Mid waa affirmative, mid waa question, mid waa negative, midna waa question is negative. Hala marka fiiri they were staying at home last night. Ayaga waxay joogeen guriga xalay baa tiri. Su'aalkayga Allah, were they staying at home last night? Miyay ayagu joogeen guriga xalay. Ila fiir markay su'aal tahay markay hadal tahay fiir markay hadal tahay waxa banaanka soo baxsan subject-igi. Ila waxaan ku shaqeyn maxay tahay formulaha iyo example-ka way isku dheelitirin saad. Formulaha iyo example-ka way isku dheelitirin fiiri. Formula waxaan dhahnay subject plus were slash was plus verb plus ing plus object fiiri. Maanta subject yaanu ah they yaanu ah auxiliary yaanu ah were. Ano la subject dakan ficil sameeya dakeentid kadib can were or ama say was. Ado u fiirinaya subject meesha ku yaala. Wixii singular waxaan dhahnay wuxuu ku shaqeeyaan was iyo I wuxuu ku shaqeeyaan was ku shaqeeyaan. Inta jamacaan ama plural-kana were ku shaqeeyaan. Had subject meesha simple aad waxaan fiirisaa subject meesha ku yaala. Auxiliary markaa siinaysid waxaa la fiiriyaa subject meesha ku yaala. Subject meesha ii yaala ma singular mise waa plural. Hadduu singular yahay tense uu yahay auxiliary ku shaqeeysi oo singular loo isticmaalo. Haddii plural uu yahay tense aad joogtid auxiliary loo isticmaalo plural si. Tusaale tense kan fiiri subject meesha uu yaala muxuu yahay they waa they singular mise plural iska cadda ayaga baa loo dhahay sax. Maxaa la siinaa marka were la siinaa marka subject waxaa leenahay waa they subject ficil sameey waan baran doonaa subject they waa subject yogsiya hebel waxaan grammar waa marka maxaa waa grammar markaan gaarno waxaan waa la sii tiri doonaa ilaa ay farci ugu dambeeya la gaarsii doonaa. Ayaa waa subject ya ka tahay subject pronoun ya ka tahay hebel ya ka tahay do of the action waa la sii socon doonaa ilaa meesha ka timid la geey doonaa. Markaan gaarno grammarka waa marka maxaa waay waxaan rabnaa inaan kala fahanno subject ya ah
auxiliary يا verb يا object يعني كل فيها نرمنا صح أنا كنت ما أنت تاني كلعان أوكي حنا السبجكت هذا وحنوه they نوع subject pronoun وا هاي where و auxiliary عندنا verb كيانو stay وا stay حنقول لها هذا كان subject كده من أكيد was am where أو لوجه auxiliary بلاس كان أنا verb يانو stay يانو verb markaa keentana kadib dan waxaan ku dartaa ing aan la fiiri maxaan ku darnaa ing stay at ing maxaan noqon staying kadib waxaan keentaa oo lahay object yaaba home at home last night waxa waaye adverb of time waa alla marka they were staying at home last night ayaga waxay joogeen guriga xalay hadda waa environment iska hadal iska caadi waxa iska caadi environment waxa la hadal iska caadi qofka iska dhahaya la statement su'aal ka dhig marka su'aal ka dhigay ustaad soo reerin ama isdhibin subject banaan ku yaala gudaha soo gal auxiliary banaanka oo gudaha ku jira banaanka bix hadal caadi uu noqon statement uu noqon waxaan la they were staying at home last night ya banaanka noo yaal subject ya banaanka noo yaal ya gudaha ku jiray auxiliary had maxaa la sameeynaa marka auxiliary weerka ahaa oo gudaha ku jiray banaanka gay subject soo xaray oo maxay noqonay were they inta kale soo celi calaamad su'aal nabku dheh haddii auxiliary banaanka nad ogsoono haddii auxiliary banaanka aad bixisid sentence ama jumladan aysan lahayn calaamad su'aal jumladaas qalad ay ka tahay sabab auxiliary banaanka bixisay waxa waajib ah qasab ku ah inaad sentence calaamad su'aal nab ku siisid ila su'aal abullah su'aal maxaa calaamad su'aal basaaran waa jumlada hadda ka tagtid ewer waa marka waa qalad waa jumladaas qalad sababta qalad taa maxay tahay calaamad su'aal ka tagtid marka mid calaamad su'aal ku waa marka okay were they staying at home last night miyay ayaga joogeen guriga xalay aad tiri diid ma ka dhigaysid sentence ka hore affirmative ka ama caadi ahaa le waxa ku dareysaa ama ku soo kordhinaysaa negative or not ah waxa leedahay they were not staying at home last night they were not staying at home last night ayagu ma joogeen guriga xalay baad tiri diid ma ka dhig kuweeshu negative isla socda banaanka bixi auxiliary mac negative banaanka isla bixi adoo short form u qoraayo maxay weren't they staying at home last night so miyaysan ayagu xalay xagga joogin baad tiri xalay guriga joogin xalay okay other examples tenniskan wuxuu ku shaqeeyaa waxa badanaa la dhahaa waxaa la isticmaalaa while la isticmaalaa tenniskan while tusaale ahaan example hadda soo qaadano waxaan dhahnay aniga waxaa hooyaday way isoo waceysay baa tiri fiya hooyaday way isoo waceysay halka uu aabahay ila socday baa tiri fiya hooyaday way isoo waceysay halka uu aabahay ila socday fiya taaskan alla example saa jirto oo while la isticmaalayo while adverb of time waa last night while maxaa waaye adverb of time waa tusaalaha maxaa marka hooyaday way isoo waceysay baa tiri halka uu aabahay ila socday fiiri maxaa marka tenniska la xad marka other examples oo loo isticmaalay isagoo ku dhex jiro adverb of time oo while ah okay saan siibo example loo siiyay slide maxaa dhahay I was reading waxaan akhrinayay baa tiri a lesson cashirka while goortii you were calling me aad isoo waceysay fiiri example qoroonsi wala qurux badan fiiri I was reading waan akhrinayay baa tiri a lesson cashirka while goortii you were calling me aad isoo waceysay fiiri I was reading waan akhrinayay baa tiri a lesson cashirka while goortii you were calling me aad isoo waceysay fiiri yaa ku dhex jiro while oo ah adverb of time other examples oo tenniska loo isticmaalo waa Soomaalihan waxa lagu soo qaadan karaa ama arki doonaa waxa la dhihi doonaa aniga waxaan fasax ka qaadanayay macalinka goortii uu aabahay soo wacayay goortii hadaa maqash maxaa waaye intaan isticmaalay marka while dhexda ku jirto marka while dhexda ku jirto adverb of time okay su'aal kale marka was la marka maxay noqonay was I reading a lesson miyaan anigu akhrinayay baa tiri a lesson cashirka while goortii you were calling me aad isoo waceysay jir okay waxaa jirto tenniskan waxaan dhahnay verbkiisa wuxuu ku shaqeeyaa ing sax waxaa jirto
erayo aan ku shaqeynin ing. tusaale ahaan c oo kale ma raacdo ing. see marka tenniskan loola isticmaali karaa? maadaama la dhahay c ma qaadato ing, see tenniskan loola isticmaali karaa? sow aad taala waxaan olahay I saw her when, waan arkayay iyada goorti. I saw her when. mid marka verbiyada aan ing raacin ee tenniskan aad rabtid in oo la isticmaashid waxaa la sameeyaa bastia laga dhigaa, kadibna hee simple bastia laga dhigaa, kadib hee weena la raacsiiyaa. fiiri had fiir I saw waan arkay maano. I saw her haddaan dhao ween aan ka bixiyo maxay noqonay simple bastia noqonay. I saw her waan arkay iyada simple bastia noqonay. laakiin ween markii ku daro waxay noqonay waxay cadeynay inuu tenniska uu yahay tenniska lixaad cadeynay oo verb meesha ku jirna uu yahay verb non continuous ah, verbyada ing aan raacin uu yahay ay cadeynay. laakiin ween haddaan ka tiro simple past tennis ay noqonay. I saw her waan arkay iyada. ila saw waxay tahay past waa sax. marka tenniskan lixaad tennisku isku xirxiran tenniskan lixaad iyo tenniska saddexaad isku xiran marka tennisku isku xiran labadaba isku xiran. tenniskan lixaad iyo tenniska saddexaad oo simple past tennis iyo past continuous tennis way isku xiran marka ila hadda kana kaaga jeedaa. waxaan ku dhahay verbyada markii la joogo tenniskan lixaad verbyada aan raacaynin ama ku shaq ama raaci karin ing markii la rabo in loo isticmaalo tenniskan lixaad sentenniska waxaa laga dhigaa simple past kadibna waxaa la raacsiiyaa when. I saw her when. I love you when. I love you when. I love you when. waxaa la raacsiinaa when la raacsiinaa. marka intaas waaye marka tenniskan lixaad uu fududyaa balse meelmeela lagu wareeraa. tenniskana haddaad markasta xifdisid formaliisa aad xifdisid yaa abratikeysid aad ku celceliso waa baran doontaa. tenniska lixaad hadda ku jirnaa. waxaan qaadan doonaa manoo soo dhow grammarkii aan baran doonaa bilaabigiisii. grammarna ma dhabo iska adag yahay wuuna fudud yahay balse wuxuu u fudud yahay ardaygii aqriya ama bratikeeya. ardaygii aqri waayna wuu ku adag yahay balse janalkan wuxuu ku suurtageliyaa in markasta adiga aad bratikeyso aana ku celceliso aana bedesho tennisyada grammarada aad ku celceliso kuu suurtagelinaa. balse markaad raag iyo shar intaba aad dhag ku siiso ay waxaas dhan kaa saacidaa. markastana waxaan ardayda u fududeynaa sida ku fahmi lahaayeen grammarka. si haddii su-aal aad qabtana waxaad comment noogu soo qortaa su-aasha aad rabtid ama tenniska aad rabtid in lagu celceliyo. haddii aragtid grammarkii lir oo rabtid in lagu celiyo qaybta commentiga dhex noogu soo sii kartaa. wixii commentiga ama ra'yigaaga ama su-aasha aad qabta meesha noogu soo gudbin kartaa. markasta janalka wuxuu diyaar u yahay inuu ku saacido inuu ku caawiyo. ila janalkan wuxuu u aas-aasan yahay ardayda rabta in laga saacido maadada Englishka ay u saacidaa. marka saxaabta mise ardayda ku xiran janalkani wuxuu janalka markasta ni ogeysiinaa inaad markasta wax aad dooneysiin ama aad rabtiin qaasatan maadada Englishka aad ka dooneysiin ama su-aal aad ka qabtiin in qaybta commentiga markaan soo dhigna cashiro waxaad dooneysay in qaybta commentiga aad wixii ra'yi ama wixii su-aal qabtiin aan ugu soo qortiin anagoo tixgelinayna su-aalihiina ama codsigiina kadibna aan iga soo jawaabi doono aadna naga arki doontiin xalin dhanka maadada Englishka. marka saxaabta janalku waa janal cusub haddii uu yahay markii koowaad ee aad daawato janalkan fadlan like share intaba dhag noogu sii si adigana aad u hesho asxaabta kale ee daneynaysa ayagana ee oo dhibaataysan sida ku fahmi lahaayeen maadada Englishka iyo grammarka tenniska ku fahmi lahaayeen ayagana u share gareey. waa mahadsantihiin.